وأنتي هذي أنتوا ما عرفنا دستور كبار قفتين أنا نمبر ما حيصلوا حقين ولا ما دوري ولي وحقرتنا عقرت كرسي سحنا أنت حاسنا أنا هو ذا جيتهم بالسمينة وحنا ما لا يا ولي كنا نسحب أنا لا نسحب والسلام عليكم ورحمة الله. وزير التعليم مع سنتاي clarification يا أنا قاعد أنت أنجونا وحام بالتلك كمان وكنا أولينا سيدا أولينا كلام ويني هم يونا ما شيء فنيان الكاس نوال دبي أنت أسكري clarification كاس أيه اسمنا والدي كوريشون ما يقولي دين تايا سعدا كمان الله كي وحنا ناري وكلام كلام كمان فرصة مسيرنا كمان young generation فريق ودليلنا. Okay, hello everyone. Sorry, my English is much better than my Somali since I was born in America. My name is Cynthia Darman. I read this constitution and I thought that what we were missing was that we actually needed to put the human rights that the Quran already gave us as we were already talking about. So I actually put this together here, and I put down all the different amendments that I thought we needed, like the first one, the right to life. Whoever kills a human being without any reason, manslaughter, or corruption on earth, it is as though he has killed all of mankind, right? We already have these things, right? It's not like it's the Bible. We are Muslim, and God already gave us all of these rights. So, for example, equality of women. Allah has made all of you from a single soul, and from that He has made His mate, and from the two spread many women and men. From 4:1, right? It's already there. For equality, as we have set you up as nations and tribes, so that you may be able to recognize each other. From 49:13, right? We are all, we have all these rights here. Actually, I put together 20, not 20 pages. So I call the amendments the Divine Declaration of Rights. I said, we the people of Somalia declare that Islam is the national religion of our nation. We who unite by common faith, culture, and heritage pronounce that the Constitution of the Republic of Somalia must protect the divine Sharia rights for humans as stated by Allah. These amendments will protect and preserve the natural freedom of the people of Somalia. Okay? So we have everything here, quotation right there. Right to peace, equality of women, equality of minorities, right to justice, O you who believe, stand out firmly for justice as witnesses to Allah, even if it is against yourself, your parents, your relatives, or whether it is against the rich or poor. We have all of this already, so we need to put this in there. Please state your name. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waxaa la yidhahdaa Muuse Faarax. waa mahadsantihiin. waxyar aanan kula hadlan baadiga mikrofoonka guddiga horta waxaan u mahadnaqayaa guddiga sharciga dastuurka loo keenay waa u mahadnaqayaa fast waa isognahay reer Columbus wax badan baa dad halkan dowlad ka yimid ama meel kale ka socda ama xafiis kale ka yimid loo yimaado dib damar wax noogu soo laamaan jiro annaga laba carab yaana yeelan marna inaan idhaahna nalama xuso noolama imaado khudba joogtaan aad dhahaan Soomaaliya afar gobood iyo afar baarlamaan wax iska samaysta marna markii noola yimaado wax noola keena fikradana laga abuuraa inaan dhaleecayn ma aha nimankan waa ku mahadsan yihiin noo yimaadeen of course waxaa jiri karta ani difoosami cali kuli halkaan lagu bari maanta marka u maleynayna dadka dhahaya iyaga lacag bixiye laasin lacag ay soo siimay ani lacag ma siin ninna ma aqaan laakiin gudaha idin sheegay dhegeysta in noola yimaado fikradaha aan dhiibana xaq baan u leenahay qoryaha intaa soo socday oo waqtigooda soo dhameeyay intaa loo yimaado aan u mahadnaqo waadenahay waxaa jirta annaga dawladda iska dhaafay diin baa qaarkaan ma haysanaba boqolkiiba boqol Soomaaliya diin ma haystaan dhihi karaa war diinta ma isku haysana diinta hadda ninka aad leedihiin dalka saddex shay baa laga sheegay waa constitution baa la akhriyay ayaan dawlad ilaa 28 email baa lii soo diray kulli waxay ka hadlayaan diinta war diinta qaar waxay qabtaan Muuse salaada casr dawlad saaca oo xaniid bidixda laga siiyo diinta qaar waxay rabtaa in bidixda laga bixiyo qabiilada wax ka sheego war diinta waa isku haystaa diin ma isku hayo Soomaaliya wax dhibaatada hadda ka wada waa diimeed iyo qabiil
dhaqanka aan leenahay way waxaan xaq u leenahay wixii inaan fiirino fikradaha aan ka dhiibno adinkana mid aan ka codsanayna wixii anaga aan dhiibno fikradaha fadlan aan aragna hala aruuriyo aan ku darsano midda kale aan rabaa inaan ka hadlo constitution waxaa ninbaa wuxuu yidhi dowlad baan haysanaa laakiin maamul ma haysano aniga waxaan jeclahay inay isla socdaan maamulka iyo dowladda inay isla socdaan aan jeclahay 20 sano dowladna ma haynin maamulna ma haynin mar afar burcad baan xukumaysi mar walaalayaal baan xukumay mar waxaan xukumay in baarlamaanka meel u socdaan meel kale jirin mana aaminsan aniga baarlamaan in loo geeyo waxaan hadda constitution ku sheegay sababtoo baarlamaanka Soomaaliya ka jirba ma aaminsan maanin sababtoo totally waa zero baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan wuxuu jiri karaa markii dadku ay ismaqlaan danta ummadda laga hadlayo baarlamaan la dhihi karaa waad mahadsantihiin aad baa mahadsantahay raalli aada sugiya waa laydinka horreeya qofkaana horreeyo qodobka weli diiniga ayaa socda marka waa soo koobi lahayn waxaan u gudbi lahayn federal system please haddaadan erey ka duwan ereyadii la sheegay hadallada la sheegay fikradaha ka duwan fikradaha la sheegay haddaadan haynin please aan maarkino aan بسم الله magacay xaga khayr soote cali waan siiyay aniga laftiga insha Allah iska faray su'aasha ugu horeysa weydiin waxay waa maxay wax sicil barar baad ku rideen waxaan uga jooday sicil bararkana daqiiqado ka hor markaan aan kulanay waxaan email ku helay martiqaadka kulanka noqol ka mid ah qabiga constitution qabiga mar haddii la codsaday wixii hore looga hadlay inaan dib loogu celin dib ugu noqon maayo laakiin haddaad eegtaan qodobada uu qeexayo waqti aan ilmaamin waxaan kalon daawacday sida qiyaadka ugu horreysay ka hadlayeen dastuurka hore lixdankii ayaan helay nasiib u helay inaan daawacdo oo aad uga kooban midkan ka yar ka tiro yar kana tayo badan waxaan kaloo arkay nuqul kale oo 90kii badanaa mid raacayay kii hore marka cutub kasta iyo bog kasta oo eegto markaan soo geliyay walaalkii Jibriil baa hadlayay oo aan isiriba waxyaalo qodobadii aan soo qoondaystay oo dhan soo xariiqday oo dhan ka hadlay marka ku celin mayo amuurta ku saabsan dhaqanka iyo afka haddaad eegtaan bogga 17aad cutubka saddexaad bay ku taalaan dhalashada iyo jinsiyadda iyo dhagaysta midda Soomaaliyeynta waxaa la yidhaahdo luuqadda khayraadka dabiiciga ah iyo hantida waxaan isiri dastuurkani qarannimadii Soomaaliyeed haybadii Soomaaliyeed sharaftii iyo jiritaankii oo dhanba waa mid xaqiiqdeedu mid rabo taa macnaheedu maaha mucaaradka badan adiguna iska raaco ninkaan walaalkiina martida noo khayr Allah siiye soo dadaalay xafladda muhiimka ah raadinaya ra'yiganaga inuu maqlo faakti ammaan buu mudaya dadka qaar baa xaleeya inay kala saari karin in arrin qarannimo taabanaysa oo dhaxal waad garanaysaan marka laga hadlayo taariikhda hidaha Soomaaliyeed iyo dhulkii Soomaaliyeed iyo jiritaan waa dhaxal u wadkayagu inagoo halkan joognaa waxaa laga yaabaa qaar badan innaga naga mid ah in halkan lagu aaso ama aan dib u noqon laakiin markii dhaxalkii laga hadlayo iyo sharafka Soomaaliyeed waa arrin qof kasta oo damiir iyo qiiro leh tahay ka hadla sida awgeed ma rabo inaan hadal ku dheeraado muddo kala la gelayaa wala waxaan la gudboon baa leeyahay haddaan ahay jaaliyadda Soomaaliyeed aaraadooda la weydiiyey inaan qaadacano midaas aniguna dubaan ku dhufto السلام عليكم وحنقول بينا وإذا كان كبلاوة قبض كي ها فدراليسمو يا هاي مفصل حيسا إذا كان كارك بس ترى بسيط كارك أنا بيت سنتين دي سنة
تضبطي شركي يقول شيء سين سومالي حمر يعني وعزم وعبدناين صدقكم بانجاري وقف من كذا قاعد كشكين الشباب suicide bombers كانوا صوتين وعرور يرى هذيك سنين كان ثالث ما هو كنا نقدر تقول هيك ساسوي كهاي سومالي هذا معي ما تستنسى يا أسباب فلوي كجري كعب مقالوا لي في سوماليا ما تستنسى واحد من بلاد واحد من traditional leaders وقاسيت عباشي هوانكي وان شيخي سني وري سني عقديه بدنا وجري بنا صورنا ولا وربو حي شيغتي وحي اي تبنيسي وحي تسنيسي كل كلا قاطي قبلها ka kursaday waxaan banaanka soo dhigay maahay taas waxay gelisay rajo in Soomaaliya ay soo ceshan karaan midnimada waxaa jiray waxaan ku noqday maalintaas waxaan leeyahay hadalada haweenka waxaa la siiyay haafadey waxaa hadalada xuquuqda dumarka markii odayada ay shirka soo qabanqaabiyay toban wadaad bay horta liiskiina ugu qoreen speakers waana cameeyeen haweenkii waqti kasta ku hadlaan gudoomiyahan ninka nooca wuxuu yidhi haween xuquuqda ay sheegayaan ka maqan markay dhashaan ilaa markay ku guursadaan aabbahood baa gacanta ku haya oo xanaaneeya oo koriya markay guur gaaraan ninkooda ayaa la wareegay mas-uuliyadooda beenma ragkay jirtaa markay gaboobaan wiilashooda ayaa mas-uulka maxaa ka maqan ninkii yaqaana waa yaqaanaa sheekada noocaas oo kale maalin dhan baa next day oo dhan baa qaatay Soomaaliya meel inay idin gaareen hooyooyinkiin iyo gabdhaha iyo culubdaas xooggaas 50% of the Somali population hadday idin respecting fursad siin awood siin aqoonsan qaymahooda weligin meel la gaari mayso waa idin dhalaa waa idin kornaa afka naga idin kornaa tilaabada saad qaataan naga idin kornaa hooyanimada kasi koo wadaniin asala yaan baahnaanahay marka weer dhaana hawsha markii la qayto hawsha ugu badan Soomaali gabdhaha iyo hooyooyinka fiirirabi waxaan ka wadaa inta waxaan ka shaqeynayaa annaga 60 sano kusoo dadaalayna xuquuqda yada xuquuqda haweenka Soomaaliyeed iyo xuquuqda Soomaaliyeed bilaana tan haweenka sharci yaa la baasgareeyay la yiraahdo family law xeerka qoyska عشان يوم هل قالوا قابلسا مر شريعة له مديدي والدين جني يتقن لكن شريعة له كليه كتسوقات أكتبت family law good constitution good coalition ده اللي بيسمى البروجرام عشان يطلع بعد هذا الكلام عشان يطلع maybe كن يشان غلط معقول ما شيء يتبنتي good ما جاي mature enough ma it's not fair وحين بدلوا أفرتناهم وأنا قادر أفرتناهم وأنا قادر بحلك وأنا قادر سندان حتى نودي ده أليك أول كل يقول بعيالي وقت بناه من لا ينام السلام عليكم qof odayga ayaa codsaday intaan federaalka galin inaan u dhiibaan rabaa waxaa la lahayaa Dr.